dhaawac waa igu dhacay halkan dabaq halkan ka soo dhacay meeshan aan joogo maxaa kugu dhacay maxaa uga soo dhacday walaal de meeshan cadaalad ma taalo Soomaali hadaan nahay meesha cadaalad ma taalo moobila iyo wax iyadu gudaha Syrian ma isleenay kadib Syrian waxaan isleenay waxay noo soo qaadeen booliska dibadda ay noo saareen anaga Soomaaliya oo badan imika inaan ku warrami doono meesha jooga iyo anaga kulligeeygi dibaddan wadaan seexda dadkii naga qaatay moobiladii alaabta naga qaatayna dadkoodii baa markii uu turjumo hadlay afkiiba garanayay annagu sida dhibtaasaan haysata kadib aniguna aan ku soo noqday kaamkii markii dibadda ay saaray dhibtaa darteed baan kaamka ku soo noqday iska soo tuuray dabaqa waan siri dabaqad ka soo tuuray dabaqa saddexaad iska tuuray oo maxaad iska soo tuuray dhibaatada ay haysta meesha iyo daryeel la'aanta iyo qaabil la'aanta iyo booliskan ragga kala warramayaan wadanka waa anaga aan ku qaabilsanayn dan Afrikaanna marka dabaqa iska soo tuuraysay maxaad maanka ku haysay maanka waxaan ku hayay inaan iskaba dhintaba oo inaad istishaad doonaysay noloshay igu adkaatay dabatan maxaa dhacay meeshan baan meel baahan walaal meesha meel wanaagsan ma aha hay dabaqad ka soo tuurtay kadibna maxaa dhacay kadibna de afar cishan kuma ku jira dhakhtarkan aali hay maxay see wax ku gaadheen la gacantan labada gacmood ka jabay dhabarka hay imkana alxamdulillah de walaal taagana ku warramaya aan ka soo baxay koomadii markii dambe soo caafimaaday kan baa kugu soo celiyay meeshii ku soo celiyay kaamkii ugu soo celiyay imka fiicanta alxamdulillah rabbil caalamiin kuwa fiicana walaal maxaa ku qorshaysan marka waxlaalo waxaan ku imika de ka baxbaan isla wadanka Sweden u baxbaan isla way soo qabteen maalin soo qabteen wadanka iyo halka lagu socodaan dhaawaca wadankan baad ku dhaawacantay xaq u leedahay joog bay ugu dhahan xaq aan ku yeeshay sharci iyo waxaan doonayaa waan ku wariyo bayt fiican la geeyo kadib de guri fiican la ima geeyay xilligaan interview iyo waxba toona laga maqaan sharcina la ima siin halkan baad xaq u leedahay ugu dhahan xaqna kama hayo xaq iyo xaq watan marka maxaad u sheegaysaa dadka ku daawanaya dadka i daawanaya waxaan u sheegayaa inay horta dadka Afrika imika joogay ee walaaladeeda Soomaaliyeed ee sharafta waxaan u leeyahay horta Yurub waxay ma yaalaan hana ku sahmiyaan inaan Yurub timaadaan wixii naga dambeeyay kuwa joogowna Ilaahay de khayrkeeda Ilaahay idin kulisiyo wana la aragteen adigu markaad Yurub joogtay fariintaas oo kale soo maad maqli jirin marka Afrika joogay fariinta kale waan maqli jiray laakiin waxaan suran jiray dadku waxay sheegayaan been imika waxaan leeyahay dhabti tahay berefooda ayaa dhaxamo gaajo Afrika ma kuma gaajon jirin baa halkan baan ku gaajonaaba aad baad u mahadsantahay Allah mudan